soo dhawaada asxaabay wadanka leh awood military iyo karti ay ciidankooda ku difaacan karaan kuna weerari karaan ciidanka ka soo horjeeda waa wadan aan lagu dhici karin oo quwad leh haddaba si uu wadan kastaaba u yeesho oo u dhisto ciidan adag oo loo babacdhigi karin waxa uu ciidamadiisa u tababarayaa si adag maantana waxaanu muuqaalkan idin wadaagi doonaa tababarada la siiyay militariga caalamka kuwa ugu la yaabka badan ee ku soo dhawaada barnaamijka faahfaahsan waxaynu ku bilaabaynaa ruushka tababarka toogashada laabta waxay siiyaan ruushka tababarkan ciidamadooda gaarka ah waxaana rasaas toos ah lagu dhufanayaa laabta askariga isagoo dabcan askariga wuxuu iska xigsiyo laabta gashanaya iyadoo dhici karta mararka qaar inay rasaastuba gaadho jirkiisa waxaanay tababarkan ugu tala galeen in askarigu dagaalami karo hadiiba rasaas lagu dhufto marka dagaalka lagu jiro waxaana laga doonayaa inuu istajiyo dagaalkana sii wato lana sii tacaalo dhaawaca ku yaala wadanka Shiinaha tababarka baradhada kulul tababarkan waxa qaatay qof kastoo doonaya inuu heer military ka gaaro dalka Shiinaha iyadoona la xoojinayo hawl adayga kartida iyo geesinimada ninka militariga ah waxa gacanta loo saaraya bam iyagoo ugu horeyn sameynaya wareeg ay taagan yihiin 6 askari inta kadibna waxay isku dhiibdhiibayaan bam qarxi kara daqiiqad kasta qofka kaliya ay ka amar qaadanayaan joojinayna marka uu qaraxa bamku soo dhow yahay waa hogaamiyaha waxaana laga yaabaa inuu mid iyaga kamid ah ku baabao oo naftiisa ku waayo isla wadanka Shiinaha ka boodida meelaha dabka ah sawirkan waxaynu ku aragnaa askari ka boodaya meel dab uu ku wareegsan yahay haddaynu tafaasiil ka bixinana waxa uu askarigu qaadanayaa wixii hub ee uu dagaal ku gali lahaa isagoo ka boodaya meeshan dabku ku wareegsan yahay waxaana looga gol leeyahay in askariga militariga ah dareemo dhibaatadii iyo cadaadiskii uu dareemi lahaa markuu dagaal xaqiiqo ah galo wadanka Mareykanka tababarka biyaha hoostooda marka la barayo ciidanka Mareykanka tacticada dagaalka waxa waajib ku ah inuu askarigu barto sida biyaha loogu gabado iyo inaanu ka baqan biyaha mowqif kasto yimaada sida awgeed waxa laga xirxirayaa askariga gacmaha iyo lugaha dabadeedna waxa uu galiyaa biyo qabow iyadoo ay waajib ku tahay inuu dabaasho isagoo taabanaysa sagxadda biyaha dibaddana u soo bixin isla wadanka Mareykanka cabida dhiiga maska koobraha xilliyadii hore waxay sameyn jireen ciidamadu tababaro iska fudud isla markaabana waxay u wareegi jireen saaxada dagaalka laakiin ciidamada badda Mareykanku waxay ku dareen tababarkooda cabida dhiiga maska koobraha tababarkan waxa loo yaqaanaa Cobra Gold isagoo soo bilowday 2004 waxaana hadda siya tababarkan askartooda wadamada ay kamid ka yihiin Thailand, Mareykanka, Singapore, Indonesia, Japan, Kuuriyada Waqooyi iyo Malaysia wadanka Taiwan ku gurgurashada dhagxaanta ama siday ku magacaabaan dariiqa jannada waxa la sameeyaa qaybaha ugu dambeeya ee tababarka military ee dalka Taiwan waxaana qaataa 9 isbuuc waxaana waajib ku ah askariga inuu maro dariiqan dharkiisu gaadhay 50 talaabo isagoo feer qaawan biyo diirna dusha laga shubayo dhaqaaq walba taxaddar lahayna waxa ku keenaya askariga inuu dhaawac daran soo gaadho ama geeriyoodaba si uu ugu gurguranayo meeshan dhagxaanta ah cadcaduna xagga sare ka hayso waxaana jira macluumaad sheegaya in aanu jirin askari dhameystay dariiqan 50 talaabo ah askari kastaana meesha uu ku joojiyo ayaa darajadeeda la siinayaa wadanka Belarus isku dheelitirka dabka sida xaqiiqada ah ciidamada gaarka ah ee wadanka Belarus waa qaar awood weyn oo adag tahay in la dilo askariga doonaya inuu ka mid noqdo ciidamadan waa inuu maro tiro tijaabooyin dhowr ah waxaana ka mid ah orod dheer oo 1 kiiloomitir ah dagaal foolka fool ah iyo weerar ay ku qaadayaan meel ka sarreysa waxaase kaloo jira tababar dab lagu soconayo markay soo dhaafaan dabkana waxay u galayaan qiiq aan oo askarigu waxba arkayn qof baana rasaas ku furaya muhiimaduna waa inay rasaasta ka badbaadaan si ay ciidanka gaarka ah ugu biiraan wahagaag daawadayaal muuqaalkan ayaan maanta idinla wadaagnay qodobkii aad la yaabtay commentiga nagu reeb muuqaalkan haddaad ka heshay like nagu dhiirigeli subscribe meesha ku qoran tahayna taabo si ay ku soo gaaraan muuqaaladeeda cusub mahadsanid